السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركل أيو حلقة ذهني أيو هالكين وقصي صعدة وحان كعذر دارنا مددي عن كم مغنين هودا أو كل ويد مدة هالبلقة ونذكر عليك اللي سيدا درادد وحبلا بأن حلقة عصب أو تحنا أو إنه كهاد لنا سيدا ويب سايت لو سمايو أديون مرين وحكورنا سمينين وحكورنا ما انقرينين. بسم الله. مركب ورسة waa kan designing a blog. Website-keena waxaan ku dhisaynaa platform-ka blog. Platform haddii aanad garanayn website kasta waxa uu ku dhisan yahay platform. Maxaad ku dhisaysaa website-kaaga? Platforms-ka ugu caansan ee common platforms-ka ee muddooyinkii hore laga soo bilaabo ilaa 2008kii marka la soo gaadho xataa ilaa imakadan sii jira waxa weeyaan waa saddexdan. waa Joomla, Drupal iyo WordPress. marka platform-ka aad ku dhisayso ayaa marka hore muhiim ah intaanad ka fikirin sida uu ekaanayo website-kaagu waa inaad marka hore ka fikirtaa platform-keed ku dhisan WordPress, Drupal, ma Joomla. saad aragto Joomla waxaa isticmaala 6.44 halka Drupal-kana 17.07 halka WordPress-na 50 ay isticmaalaan dadku. marka kaasi waa platform-ka. waa tani waa 2008 ilaa 2010 ayuu common ku ahaa WordPress. balse imika waxa ku soo biiray qaar kale tiradan. labadan waaba laga sii saarayo meesha. Joomla midhar baad sii arkaysaa sida website-ka Cabdirashiid oo kale. Drupalna waxa laga yaabaa midhar kale inaad sii aragto. halkan waxa jira choose your platform ayuu ku leeyahay kan oo kale. waxaad aragtaa meesha waxa ku soo biiray Universal Code iyo WordPress iyo Blogger. saddexdaas ayaa loo soo qaybiyay. marka waxa saad aragto Universal waa mid hore isaga laftiisu way qadiimi. WordPress-ki waxaad aragtaa inuu ka labaad soo galay. ka ugu horeeya number 1-ka Blogger inuu soo noqday imaka ee aad ka soo shaabaxay. halkan waxaad aragtaa platforms aad u fara badan oo yaala Blogger-ka ka mid yahay Drupal-ki, Joomla, Netspace-ki waxaana platform ah ayaad aragtaa. kaas marka ugu horeysa waa inaad platform-kaad ku dhisay website-kaaga aad doorataa. intaa markaan ku gudubno waxaan gudagalaynaa sida loo sameynayo website-ka. marka koowaad waxaad tagaysaa bartan browser-kaagii internet ayaad u baahan tahay. waxaad qoraysaa blogger.com ayaad qoraysaa. innaga waxaad niyadda ku haynaysaa waxaynu sameynaynaa website aan codes loo marayn aynu sameynaa wax code ma qorayno. waayahay halkan waxaad gelinaysaa Gmail. marka koowaad waa inaad Gmail soo samaystaa. markaad soo samaysto ayaa waxaad qoraysaa blogger.com sida kaaga muuqato shaashada. qaabka ku muuqda ayaad qoraysaa. kadib waxa ku soo baxaya bartan Gmail-ki aad soo samaysatay baad bartan gelinaysaa iyo password-kiisa. marka uu sanka ugu soo baxo waxaad arkaysaa bartan continue to blogger. awal hore marka la sameynayo continue to blogger ba lagu dhufan jiray laakiin labadan option ba imika la soo kordhiyay. labadan option marka uu hore Google Plus profile samayso ama uu ku leeyahay create limited blogger profile. marka kan hore Google Plus-ka isaga xagga dambe aynu ka sharxi doonaa waxa uu qabto create limited band orna display name. blogger-kaaga maxaa magaca ka soo baxaya waa maxay? iminka tusaale ahaan aynu idhaahno muxtarif test magacaas ka soo baxo. continue to blogger waa magaca aad u bixinaysay ay soo qadimeen. kadib toos waxay noo geynayaan bartii blogiska. kadib halkan waxaad leedahay new blog cusub samee. hadda in title u bixinaa tusaale ahaan bloggeena ha noqdo muxtarif sidii markii dhaweyd test macnaha title-ka ka soo baxaya tusaale ahaan aan faahfaahsiyo. simply title waxa weeyaan waa qoraalka halkaa ka soo bixi doona muxtarif. marka halkan looga ku jirta aad tijaabaheeda gelinay. marka bartaas qoraalka ka soo baxaya ayaa la yiraahdaa title. qoraalka ka soo baxaya ha noqdo been muxtarif test. halkanna waa address-ka lagu geliyo waa kan oo kale address-ku kan oo kale lagu geliyo kan oo kale.
marka waxay leenahay lagu galo muxtarif test lagu galo .blogspot.com marka qaabka sax hadii uu ku yaraa waxa weeyaan waa available waa ciwaanka wada heli kartaa hadii qalad ku soo saarna mid kale waa inaad ku daydeeda halkan templates ay ku soo dhigay template maalinta dambe sharxi doona waa muuqaalka website-ku soo website-ku leeyahay marka kan iskaga dhufay mid ka doonto kadib create blog imika muhiim ah halqada dambe ku soo qaadana sharxa bartan hadaba waxa weeyaan waa barta aad ka maamulayso website-kaaga imika saas ayaan ku sameynay aynu tijaabino bal inaynu sameynay view blog markaan idhaahno inagoo wax code qorin bin website-kan sameynay website-kan noocana aynu soo sameynay inagoo wax code aan qorin haba yaraatee waa muxtarif test waa title-kiisii waxaana lagu soo geliyaa muxtarif test.blogspot.com imika hadii browser-kaaga aan furo aan qoro muxtarif test.blogspot.com on enter siiyo ama qof kasta soo qoro magaca uu soo boodaya website-ka waa website caadi ah oo samaysan buu noqday oo blog ah balse subdomain weeyaan waxa kala jira domain iyo subdomain baa subdomain waxa weeyaan kani wuxuu ku sii dhex jiraa website kale ay ku dhex jiraan laakiin hadii muxtarif test.com waa la inta dhaxay ka maqnaan lahayd domain dhameystiran buu noqon lahaa kan waa subdomain hadhow ayaa laga jarayaa oo website gaarkiisa u taagan laga dhigaya marka xalqadan koowaad ee maanta intaas aynu ku soo qaadanay xalqada dambe intaynu ku kulmi doono assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh